فيروس عصوبة malware oo la rumaysan yahay inuu ka yimid Shiinaha ayaa waxyeelaynaya kombiyuutarada iyo telefoonada shirkadda Apple. Shirkadda ammaanka Palo Alto ayaa sheegaysa fayraska weerarkan oo xadi kara akhbaarta shakhsiyeed uu ku dhex faafayo in ka badan 400 wax loo yaqaan abiska. Fayraska malware ayaa isaga kala gudba kombiyuutar ilaa mobile isagoo maraya xarkaha USB-ga. Baarayaasha ayaa sheegay in macaamiisha Apple ay isticmaali karaan abiska saxda ah. walaac ayaa ka yimid kadib warka xabado loogu talagalay in si gaar ah loogu isticmaalo qoryaha printerada 3D-ga lagu sameeyay Mareykanka ay keentay in guryaha lagu daabacdo qoryo caag ah ay rumowdo. Mas'uuliyiinta booliska adduunka oo dhan ayaa ka digay isku daygaasi qoryaha la daabacay loogu adeegsanayo xabadaha caadiga ah ayna suuragal tahay in gacmahoodu ay ku qaraxdo. Makaanig Mareykan ah ayaa sheegaya in xabadiisa ay u ogolaanayso in uu ka rido printerka 3D-ga dhowr jeer si badqab ah. adeegga dhiigga laanqeyrta cas ee Australia ayaa bilowday tijaabada iskaan sida midka aan ku aragnay Israel horaantii sanadkan oo ka caawinaya si wanaagsan inuu ku helo xididka. baarista ayaa tijaabin doonta haddii la awoodo in ay adag tahay helidda xididka ay keenayso in ay yarayso walwalka waxayna ka dhigaysaa dhiigbixiyaal badan in ay bixiyaan mar kale. سمعتها دغها kuwii ugu horeeyay ee la hadla dadka indhaha la ayay Microsoft daahfurtay. qalabkaasi ayaa sameynaya tilmaamo adeegsanaya xogta meelo ka timid telefoonada Windows-ga iyo shabakado warbixin ee horey loo geliyay. maqalka samicadahan ayaa u aqrin doona warbixinada waaweyn una ogolaanaya qofka sita in uu ogaado in uu sax ku socdo iyo waxa agagaarkiisa ah.